جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa dhici karta inaad samayso jimicsi iyadoo jimicsigu jirka aadamaha u leeyahay caafimaad ayaa haddana waxa dadka qaarkood ay sameeyaan khaladaad dhinaca cuntada ah jimicsiga kadib kaasoo halis caafimaad keeni kara. si aanay taasi u dhicin ayaa waxa lagula taliyaa dadka jimicsiga sameeya markay jimicsiga dhameeyaan muddo 30 daqiiqo kadib inay cunaan cuntooyinkan soo socda. kow beedka oo laga helo fiitamiino iyo borotiino badan oo jirku u baahan yahay ayaa lagula taliyaa qofka jimicsiga sameeya muddo 30 daqiiqo kadib inuu cuno xaddi kooban oo beed ah. laba hilibka digaaga oo qofku cuno jimicsiga kadib iyana waxa laga helaa faa'iidooyin caafimaad oo tiro badan. saddex kalluunka oo aynu ognahay faa'iidooyinka caafimaad ee uu jirka u leeyahay ayaa qofka jimicsiga ka soo baxa waxa lagula taliyaa 30 daqiiqo kadib inuu cuno waxoogaa kalluun ah. afar boorashka oo uu qofku jimicsiga kadib cunaa waxay saacidaa oo ay kaabtaa faa'iidooyinkii caafimaad ee qofku uu ka helay jimicsiga. taa beddelkeeda waxa qofka looga digaa jimicsiga kadib inuu isla markiiba cuno cuntooyinka borotiinka badan iyo cuntooyinka dufankoodu xad dhaafka yahay sida hilibka iyo caanaha iyadoo lagula taliyo qofkii isticmaalaya ama qofkii u baahan inuu isticmaalo hilibka iyo caanaha inuu cuno muddo 2 saacadood ama 3 saacadood kadib xilliga jimicsiga laakiin isla markaaba aanu ku bilaabin markuu jimicsiga ka soo baxo cuntooyinka hilibka iyo caanaha iyo kuwa la midka ah ee dufanka iyo borotiinka faraha badani uu ku jiro. marka uu qofku jimicsiga dhameeyo waxa uu isticmaalayaa 30 daqiiqo kadib inuu cabo biyo badan iyo inuu cuno cuntooyinka aynu kor ku soo sheegnay oo kala ah beedka, digaaga, kalluunka iyo boorashka. aad iyo aad ba u mahadsantihiin. muuqaal kale intaynu isugu iman doonana waxaan idinku dhaafayaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.